وبارك عليه الله يا نفسي خير كده وحدينا نوصل نغير سبكي نبينا الله يا نفسي خير كده وحدينا نوصل نغير سبكي نبينا إلهي سميه عبدي وكسجودا إنو صالحين تيو سبكي نبي قوهشدو إنو صالحين تيو سبكي نبي قوهشدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال إذا لأهانتي بقى كنا سودوا هذا مركز برنامج كان قيمها بدنا أفر يا بالمرن وهذا وكلا كداوتان تلفزيون كقلنا كجمهورية السومالان هذا البرنامج كان ساكوا ورقة بتاعه وحكوا بين يلا بقى يبغى قيبته وراه وعد الديني وكوسابسن فائدة يفضل جايله ده بيش براكيسان رمضان تاسو كوبن صدق قيبات وطبعا كور يأيهين دم بداف طبعا كده حقيقي tobanka ugu horeeya ay yihiin naxariis tobanka ku xigana ay yihiin dambi dhaaf halka tobanka u dambeeyana ay ka yihiin cidqoon min naar ama naarto la iska xoreeyo ilaahay naga dhigo kuwii saddexdaba la kulma ee ilaahay waafajiyo الله يا نفسي خير كده وحدينا نوصل نغير سبكي نبينا Somaliland dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida suuqyada magaalada ganacsigaas u sumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaala waxay saanta haystaan internet hilaac oo sugan oo marqura go'in hadduu ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada shirar aad la gelineed waddan kale aad oo tegin kharashkaaga bixin baad internet adeegsan oo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiim ah markay soo gasho helaan bay muxubbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet hamoogaan gurigaaga soo gala wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisu xadid ma leh mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata go'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahneen ruutir kugu xidhayno hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot speed badan soo gasho waa shirkadda koobaad ee Somaliland hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optica ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoodee الله يا نفسي خير كده وحدينا نوصل نغير سبكي نبينا daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena afur iyo abaalmarin oo si toos ah idinka imanaya magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax waxaanu markaa ku suganahay bartamaha degmada Axmed Dhagax anagoo dadweynaha ku dhaqan degmadani weydiin doona su'aalaha diiniga ah ee la xiriira barnaamijkeeni kuwaasi oo cid garata ay heli doonaan abaalmarintii ay ugu tala gashay shirkadda Soo iyo telefishinka qaranka marka hore magacaaga saddexda Farxaan Cabdi Axmed oo degan xaafadda Axmed Dhagax gaar ahaan Siinay waayahay quraanka ma dhigtay إلى هالكتاب قاعد. لا شنيتون. لا شنيتون. كتاب كهذا كل يوم آخر كرسة. واي سؤال ديني كوي ديننا. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام حوت كده سمع. واي سؤال كوي ديننا عين هوين دين محمد عليه الصلاة والسلام إلى هي سمده وقسم مهري. مقرنا. أدوات ما سنتي كود مريشنا تكرم دون تواد. الله يا نفسي خير كده وحدينا نوصل نغير سبكي نبينا daawadayaal wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena afur iyo abaalmarin oo idinka imanaya magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax marka hore magacaagu saddexan Ismaaciil Mira Nuur Wayla oo degan magaalada Axmed Dhagax degmada Axmed Dhagax gaar ahaan Siinay way su'aashan ku weydiin waxa su'aal diiniya su'aasha diiniga dad ka jawaabto
waxaad ku guulaysan doontaa abaalmarinta shirkadda soo iyo telefishinka qaranka ugu talagaleen haddii aad garan weydana qof cilmiga oo dhan yaqaana ma jiro diyaar mootay diyaar way su'aashan ku weydiinay wax weeyaan nabigii ilaahay uu awoodda u siiyey inuu fasiro riyooyinka kumaha nabigii riyooyinka ilaahay sakhir wuxuu ahaa nabi ciise isku day wanaagsan laakiin ma jawaabti saxdeed aad baan kaaga mahad celinaa sida quruxda badan aad nagala qayb qaadatay mahayawna si khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo din naga yeesabki nabigeena marka hore magacaaga saddex cabdiqaadir jaacab oo degan degmada xudhagax magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Iftin way su'aal diiniyan ku weydiin doonaa Axmed haddaad garato waxaad heli doontaa abaalmarinta shirkadda soo iyo telefishinka qaranka ugu talagaleen haddaad garan weydana qof aqoonta oo dhan yaqaana ma jiro diyaar moota diyaar baan su'aashan ku weydiinay wax weyn nabigii saxaabigii magaciisa quraanka lagu sheegay Zayd bin Harith ayay hambalyan kulay wad guuleysatay aan kugu hambalyeynaya inaad ku guuleysatay hambalyan kuleeyahay quraanka ma akhrisataa quraanka waan akhriyaa maadaama bishii barakeysnada ee Ramadaan lagu jiro oo quraanku soo degay waxaan rajin doonaa inaad akhriyo doonto musxafka ka faa'iideysan doonto qadarka lacagtana ku afurtay oo aragtaa daba barnaamijkani laayday barnaamijkan waxaan u arkaa barnaamij dhiirigelina oo runaantii qiimana leh TV-ga qaranka iyo shirkadda Soona aad baan ugu mahad celinayaa way aad iyo aad baad maasantay mahayawna si khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo din naga yeesabki nabigeena daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena afur iyo abaalmarin qaybtii su'aalaha diiniga ahayd oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax marka hore magacaaga saddex magacaygu waa Siciid Aadan Bixiraal Siciid ka degantay waxaan deganay degmada Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda Masala waa tahay adiga daawada aad baad u mahadsantahay soo dhaw baan ku leeyahay su'aal diiniyan ku weydiinayna haddii aad garato waxaad heli doontaa abaalmarinta shirkadda soo iyo telefishinka qaranka Soomaaliland ugu talagaleen oo ka kooban qadar lacag ah iyo musxafka quraanka kariimka diyaar mootay way su'aashu waxa ka oranaysaa nabigii lagu alayhi salaatu wasalaam la oran jiray khaliilullah kumaha nabigii la oran jiray khaliilullah alayhi salaam qonanay soo hayd markaa khaliilullah baa la oran jiray ma garanayo nabiga aad iyo aad baad u mahadsan tahay mahayawna si khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo din naga yeesabki nabigeena daawadayaal waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkeena afur iyo abaalmarin oo si toos ah idinka imanaya magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax marka hore magacaaga saddex waxa la yiraahdaa gareeqan Muuse Ismaaciil Qardab Muuse quraanka ma dhigata waa tahay Muuse su'aal diiniyan ku weydiin doonaa oo aad u fudud qofka wixii uu garanayo baa u fudude su'aashu waxa ka oranaysaa nabigii Ilaahay awoodda u siiyey inuu fasiro riyooyinka Nabi Yusuf alayhi salaam hambali ayaan ku leeyahay ku guuleysatay hambali aan ku leeyahay waxaan kugu hambalyeynaa inaad guuleysatay su'aashii lagu weydiinay aad garatay sideed u aragtaa barnaamijkan shirkadda Soo Television iska kaashadana daawadayaasha su'aalaha diiniga lagu weydiinayo abaalmarinta lagu siinayo waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo dadku aad iyo aad uga faa'iideysteen insha Allah waxaan rajaynayaa quraanka soo ma akhristo bishii Ramadaan maadaama ku guda jirno waxaan rajaynayaa markaa musxafka inaad quraanka ka akhrisanto insha Allah hadii la helo mahayawna si khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo din naga yeesabki nabigeena Zoo waxay ku soo kordhisay adeegga kulanka internetka oo aad shirar ku geli kartid ardayna aad wax ugu dhigi kartid habka maqalka iyo muuqaalka internetka adigoo meel kasta ka soo gelaya gurigaaga xafiiskaaga iyo goob kasta oo aad ku sugan tahay adeegga kulanka internetka Zoo waa mid aad ku kulmi kartaan idinkoo isku arkaya foolka fool waana mid aad u dhib yar waxaana ka xiga oo kaliya gujin ama taabasho waxaanu ku suurtagelinayaa adeeggani maqal iyo muuqaalka ah فيديو aad u qurux badan iyo cod faseexa marka aad ka qaybgalayaashaada meel iskugu keentindan waxa ay dareemi doonaan inay ku wada jiraan qol kaliya adeegani waxa uu aad ugu fiican yahay waxbarashada adigoo quraanka ku dhigaya macallinkuna waxa uu si toos ah u arki karaa ardaydiisa oo dhan ardayduna waxay arki karaan macallinka quraanka u dhigaya waana ismaqli karaan halkaasina quraanka ayaa lagaga dhageysan karaa adeegyada kala duwan ee waxbarashada nooc kasto ay tahay macallimiintu adeegani waa ka ugu fiican ay wax ku dhigi karaan iyagoo adeegsanaya
internetka xawaaraha dheereeya ee fiber optica shirkadda Som Cable. haddaba si aad u isticmaashid adeegani waxaad u baahan tahay laptop kamarad leh iyo moobilkaaga oo ah nooca kamarada leh. haddaba si aad isku diiwaangeliso adeegani booqa page-ka aanu ku leenahay internetka ee www.so-go.com/so-virtual-room waa halka aad ka helaysid si aad iskugu diiwaangelisid adeegani maqalka iyo muuqaalka ah ee shirkadda So. magayow nafsi khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo dir naga yeesabki nafigeena daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii afur iyo abaalmarin oo si toos ah idinka imanaya magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax. dadweynaha ku dhaqan degmada Axmed Dhagax ayaanu toddobaadkan ama maalintan barnaamijkani kula wadaagaynaa su'aalaha iyagana waxaanu jecelahay inay ka faa'iideystaan oo ay gartaan. marka hore magacaaga saddexan Shaabaan Maxamed Cabdilaahi oo degan Axmed Dhagax gaar ahaan October way waxaan ku weydiinaa su'aashii walaalkay ka waryaalka ka dhaqaaqay la weydiiyey. su'aashaas jawaabteedii ka doona oo ah afar nin oo wanaagsan oo Ilaahay Quraanka ku sheegay magacyadooda. way hay Zayd Kow maxay hay Toolay laba malag oo iyaguna Baabil iyo Haaruut anbiya ma hayo Soomaa ama shakhsiyad doonaa shakhsiyad badoonaysa waan gartay Haaruut iyo Maaruut Soomaa saddex iyo Zayd waxay hadhay Dulqarnayn afartii waa kuwa afartii ma wada sicin laakiin qaar ka mid ah waad saxday marka fursad labadan ku siiyo fursad saddexaad ku siiyo ay ku cisho laba ma iga haysaa Zayd Kow Dulqarnayn laba waxa kale oo ku darsanayaa Allahumma salli ala Muhammad Baabil iyo Haaruut ma diga diiday labadaas ya oo malag weyn iyaga waan gartay waa yahay laba ay hada Soomaa هذا تصدحات كده تتعفران أنا كوجو دري تصدحات أنا كده رأي اللهم صل على محمد ما هي تحس سلام عليكم هذه أظن سنتي magayow nafsi khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo dir naga yeesabki nafigeena daawadayaal weli waxaynu ku sugannahay degmada Axmed Dhagax oo aanu dadweynaha ku dhaqan ku weydiinayno su'aalo diiniya kuwaasi oo cidii garatana ay heli doonaan abaalmarinta shirkadda So iyo telefishinka qaranka ugu talagaleen. marka hore magacaaga waa Cabdiraxmaan Xasan Cabdiraxmaan ugu lagu magac daray way su'aal diiniyan ku weydiin doonaa dad garato shirkadda So iyo telefishinka qaranka abaalmarinta ay kugu talagaleen baa lagu guddoonsiin doonaa haddii kalena cid cilmiga oo dhan taqaanaa ma jirto diyaar ma baan waxaad noo sheegtaa afar qof oo wanaagsan oo Quraanka lagu sheegay oo aan anbiya ahayn oo wanaagsan Quraanka lagu sheegay su'aasha marka lagu celiyo afar qof oo wanaagsan oo Quraanka lagu sheegay magacyadooda sida saxaabigii Sayyid ibn Xaaris oo kale marka afar qof ayaan ka doonaa magacyadooda Quraanka lagu sheegay afar qof oo aan asxaabtana ahayn ma uu macal Sayyid kamid yahay saddexda kale oo sheeg saddex kale Soomaa waa yahay mid waa waxa weeyaan اللهم صل على محمد مريم رقم ما شيء ساشا سيقول تمام هذا ما سنت اسك دي وناكسين ما جوابتي صحيح magayow nafsi khayrkeeda kuwa hadhayna nagu soo dir naga yeesabki nafigeena daawadayaal waxaynu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena afur iyo abaalmarin oo si toos ah idinka imanaya degmada Axmed Dhagax gaar ahaan qaybtii su'aalaha diiniga ah ee su'aalaha ku weydiinay dadweynaha ku dhaqan degmada Axmed Dhagax marka hore magacaaga saddex waxa weeyaan Yuusuf Ahmed ayaan halka degantay eeriyadan waa tahay ayaan Quraanka ma dhigtay ila halka ka gaadhay Quraanka waxa gaday qasas haddii kitaabka lagu dhibo akhriyo karaysaa way su'aal diini waxaan ku weydiin doonaa aad u fudud waxaad noo sheegi doontaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii magaceeda waxa weeyaan Aamina bint Wahab ما شاء الله همبليو si sax ah uga jawaabtay waxaanu ku siin doonaa abaalmarinta shirkadda So iyo telefishinka qaranka ugu talagaleen hambaliyan ku leenahay naga gudoon aan sidoo aragta barnaamijka kulli waa barnaamij fiican waxaan leeyahay hambaliyo aad u wanaagsan yahay halka ka sii wada insha Allah Quraanka ma akhrisataa inta maadaama bishii barakaysan Ramadaan lagu gudo waxaan idin doonaa markaa musxafkan inaad ka faa'iideysan doonto oo aad Quraanka aad u sii akhri doonto insha Allah aad u mahadsantahay daawadayaal haatan waxaanu taaganay gabagabadii barnaamijkeena intaanu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono wax barnaamijka aad ugu mahad celinaya shirkadda Som Cable iyo dhinaca
howlwadeennada barnaamijka oo ugu horeeyo Axmed Jaamac Xasan iyo dhammaan bahda kale barnaamijka la qayb qaadatay oo idinkaga tegaya intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono aynu ahaana amaanada Ilaahay اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يا نفسي خير كده وحدينا نبصر نغير سبكي نبينا الله يا نفسي خير كده وحدينا نبصر نغير سبكي نبينا إلهي سميه عبسي وكسجودا إنو صالحين تيو سبكي النبي وهشدو إنو صالحين تيو سبكي النبي وهشدو